بسم الله maanta mawduuceen wuxuu quseeyaa dhagayaraha ka hadlaynaa faa'iidooyinka uu leeyahay dhagayaraha wuxuu faa'iidooyin noogu leeyahay sidoo infectionka in badan waxa lagu daaweeyaa infectionka sidoo kale dhagayaraha waxa loo isticmaalaa infectionka ku dhaca ilkaha ama ciridada jiridka sabab taqaanin cirid dhiiga ayaa lagu daaweeyaa dhagayaraha waxa loo isticmaalaa dadka afka shiiraayo kale taasi shiitaan afka ay ku shubtaan sidoo kale dhagayaraha waxa ku jiro ama laga helaa borotiin ayaa ku jiro calcium ayaa ku jiro magnesium ayaa ku jiro phosphate ayaa ku jiro iyo waxyaabo la mid ah waxa ku jira vitamin A iyo vitamin C sidoo kale dhagayaraha waa xanuun baabi'iye sidoo kale goos hadii laga hayo kale uu dilisay yahay dhagayaraha ayaa dhaxgelinaysa ama tumaysa waa dhaxgelinaysa xanuunka meesha ka baxay ayaa laanaysa dhagayaraha wuxuu wanaagsan yahay infection ka soo hor soo sheegnay sidee marka infection ah iskaga daaweyn kartaa dhagayaraha hal glass oo biyo ama koob biyo ah ayaa saaraysa markuu karkaro kadibna dhagayaraha ayaa tumanaysa waa ku shubanaysa dhagayarana looma baahna kan shiidan oo qasaceysan ama ku jiraan weelasha ku jiraan ma ahan midka caadiga ah oo isticmaalna soo qaadanaysa kalimooya ku tumanaysa kadibna biyo karkara ku shubanaysa markuu ku qoosiyo shaahi oo kala isticmaalaysa oo cabaysa dhagayaraha uu leeyahay saliid marka la shiido ama saliid dhagayaraha ka daahilaysid wuxuu u wanaagsan yahay rheumatismka ama riixa dhabar xanuunka oo kale lagu daliigo oo lagu masaajeeyo aad u wanaagsan tahay sidoo kale dhagayaraha uu daawo u yahay nabraha ama boogaha jirka ka soo baxa hadaa saliidiisa sididna waa marinaysa oo waa ku dhaqaysa iyo xooga yar oo karkarsan ama fandiira ayaad ku darsanaysaa saliidiisa kadibna waxa ku dhaqaysaa meelaha boogaha ah sidoo kale hadaadan haysanin saliidiisa dhagayaraha biyo ayaa u karkarsanaysaa dhagayaraha ku ridaysaa ma karkaro kadib biyo ku qabow ayaa ku dhaqaysaa meelaha boogaha falilaahi alxamdu waad ku caafimaad sidoo kale wuxuu la dagaalamaa dhagayaraha cudurro badan sida shubanku la dagaalamaa sidoo kale calool fadhiga sidoo kale calool majiirka sidoo kale wuxuu la dagaalamaa dheefshiid xumada la dagaalamaa sidoo kale cudurro badan oo halis ah ilaa naga koriye kansarka kale ka hortag ayuu leeyahay nooyinka qasaceysan badan oo cuno hadaad isticmaashid waxyaabo badan ayaa ka dhaxlaysa oo xanuuna ah asagana bakteeriyada ku dhalanaysa caloosha ayuu ka hortag leeyahay oo bakteeriyas ayuu dilayaa insha Allah asxaabtayda aad u maasantihiin waxyaabo kale faa'iido ah oo isticmaalno dalkeena ka baxo insha Allah faa'iido inoogu jirto waan soo binayaa insha Allah comment like share yaa laga iloobin in waxda su'aalo qabtan comment insha Allah igu soo wadi waad ku maasantihiin anna waan jeclahay